marka hore halkan waxaan ku soo dhawaynaynaa musharaxa madaxweynaha mustaqbalka ahna gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo wafdiga uu hogaaminayo ee heer qaran waxaan marka hore ku salaamaynaa salaanta islaamka waxaan u leenahay soo dhawaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan leenahay soo dhawaada degmada Dila ku soo dhawaada aad iyo aad baan waxaan ku soo dhawaynaynaa gacmo furan oo wadaniya waxaan ku soo dhawaynaynaa qalbi furan oo wadaniya aad iyo aad baan ku soo dhawaynaynaa waxaan leenahay taageerayaasha degmada Dila waxay u diyaar yihiin maanta soo dhawayntaada uun mooyane mustaqbalka hadii alla yiraahdo in ay codkooga in ay ku siiyaan oo ay xisbiga wadani codkooga ugu taageeraan degmada Dila waa degmo isbedel raadisa marka hore ka dhereegsanahay gantaalaha balaastikada ee ay shiicadu ay maartay isticmaasho haday xamaas tahay hadii ay tahay magaraysa ay isticmaasho saas awgeed madaxweyne taasaan kugu taageersanahay waxa kale oo aan kugu soo dhawaynaynaa madaxweyne halkan waxa jira degmada horumarkeega marka aan ka hadlo degmada aad iyo aad ayay u tasaysan tahay oo xukuumaddu wax horumar kama sameeyay dayrka halka ku yaala ee xabaalaha lagaga weeciyay magaraysa biyaha ayaaba wuxuu noqday in TV-ga cadaani laga xaysiiyay idaacadiisa mudan madaxweyne waxaan halkan ka ballan qaadaynaa codkayagu waxa uu noo gooyo inaan mustaqbalka heli doono insha Allah taala gudoomiyaha wuxuu horta gudoomiyihii loo gartay naga Dilay waxba inuu sheegaya waxa inuu sheegaya Dilay waa xisbigii ugu horeeyay lagu soo dara buugiisa qura ee barnaamijka waxa inoogu ballan qaaday inuu inoo dhiso farsamo gacmeed yaa laga helaa cidna laga ma helo ilaahu ma laga helaa waxa inuu sheegaya daba xisbigan waa xisbi naxasuustaalo sida loo ogaado wafdiga uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbiga wadani isla markaana musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani musharaxa madaxweyne ku xigeenka ee xisbiga wadani xogayaasha gudoomiyaha garabka dhalinyarada odayaasha dhammaan waan soo dhawaynaynaa gacmo furan degmada Dila mudane gudoomiye waxa ay diyaar u tahay in ay u soo halganto xisbiga wadani oo ay sidii ay u soo saari lahayd ay ku jirtaa halka ay ugu jirtaa farowgeeda ugu jirtaa waxa ay diyaar u tahay degmada Dila in ay xisbiga wadani dhamaantood ay isku raacaan in aanay codkoodu maanta meel kale aanu marin sabab jira awgood maanta degmada Dila soo dhaweynaa xisbiga wadani gudoomiyaha Ciro ee baarlamaanka ana musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani waxaan leenahay madaxweyne wadani horaan ahay kolkaas soo saartay baan noqonay aniga waxa ku ahaa inaan kiyaan u adeerhaaba ya xisbiga ka soo baxay wadani ka soo baxay oo ahaayeen xisbiga waxaan leenahay xisbiga horaan ahayn imikana waan ahay waligeena waan ahaanayna waana soo dhawaynaynaa waana ku dadaalaynaa dhamaantayo yar iyo weyn uma kala harayno hareeraha qaxyaan haysanaa haddii aan la yiraahdo reer Dila in badan baynu inagu isoogeeyna waa isnaqaanaa kulli hadal badan oran ma inagu waa isku dambeynaa waana isoogeyn horta waxaan aad baad mahadsantihiin sida sharafta leh ee wafdiga uu hogaaminayo musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo hogaaminayo madaxda la socoto dhamaantood aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa sidii ballanto ahayd inaan hal far inayna ka leexanaynin codka hadii alla yiraahdo soo saamaha waan arki doonaa waad ka dhabayn doontaa waxaan ku soo dhaweynayaa Soomaaliland ha noolaato ilaahay madal khayr qabo hayna siiyo ilaahay abaarta inaga soo jabiyo dhammaan shacbiga degmada Dila aad baan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen xilli abaareed baynu ku jirnaa markaas safarkaygu iska kooban yahay siisaba laakiin saa soo baxdeen iyadoo waqti yar aan leedii sheegay ka hor aad baanu idinka mahad celinaynaa dhammaantiin odayaasha
عواشة odayaasha dhaqanka hablaha iyo ardaydaba dhammaantiin aad baan idin salaamayna waxaanu martuun nahay gobolka Awdal degmadii ugu horeysay ka soo galayna waa halkan soo dhaweyntiinu aad bay noo qancisay waan idin mahad celinaynaa magaalo waliba taariikh bay leedahay oo taariikhda halkani waxa weeyaan waa goob waxbarasho gobolka Awdal guud ahaanba marka insha Allah barnaamijka xisbigana waxbarashada muhiimad weyn buu siinaya marka goobaha insha Allah la siinayo muddaanta koowaad ayaa ka mid yihiin xagga waxbarashada waxaanu rajaynaynaa saadee ballan qaadeen in codkiina siinaysaa wadani soo saas maaha soo siin maysaa wadani